فكرة أهان يا سبب كلا تجاس يبوخ رقيسك ماري كسوع أنا ما كهر مراي وحاس ليه هاي وحاسة بني منك واي يعني مر والبا ninka horta khaldan sidee sababtoo ah dumarka haddii sidee jeceshaha loo yeelo ama loona naxariisto ama la sasabto waxaan aaminsanahay inay soconayso laakiin waxa reerka toosi la yahay reerka dhaqmi la yahay waa nimanka ragiya dulmiga wala leedahay kala taga ayaga dulminooyo ayaga kala taga ayaga sabab u ah xataa waxay sameynayaan tan ilmaha waxay leeyihiin ilmaha mabilinayadi sabiilku waa kaa goosanaa haddii kale ilmaha keenso anaa micnaha biilinayo haddii kalena ilmaha qaado wax biil ama soo weydii kartid gabadhii laga yaabo inay cunugeeda inay korsato ay rabto biilka yaa laga jarnaa warisiye marka ayadan laga yaabo inaysan lacag haysanin inay wax baranin inay maanta shaqo aysan haysanin burka hooyooyinka qaar waxay ku qasbiin inay ilmahooda dhiibaan waxay cunaan nin waa wadinaa laga yaaba marka yaa qofka problemkooda ninka warle ma wadinaya بس كده أنا في صحة سوق يعني كسوع هرتا ولا شيء ماري وحسك خالدن وحلو يدي إني فرين تهاي إني بيلته labadaba waa ka jawaabaan dhacdada markay dhacdo oo furiinka la kala tagay kadib wixii dhici lahaay waa wixii ka hadash صح maadaama aan kala tagnay oo ku furay ilmahayga aniga isi ana biilanahay just biil mahay waa furiinka kadib laakiin eedo waxay tahay furiinkan maxaa sababay furiinka maxaa sababay markii laga hadlo ciyaalkan way ku jirtay iyada laba israacis waxay ku tiri furiinka raggaa sababa because gabadha siday rabta kama hesho waxayna raacisay ilmuhuna iyaga sabab u ah gabadha inay kula dhagaan ku tiri iyada labada qodob way israacisay okay furiinka horta waxa sabab u ah dumarka badanaa sababtana marna eed way ku leeyihiin marna eed ma kula tusaale ahaan awood ugu badan isticmaalaan horta dumarka markii ay marwan yihiin oo guri degan yihiin waxa waaye inay ninkii ku dhahaan ifur iyo saam ku wada joogeen mar walbana ragga xaalad caadi oo normal ay dumarka ugu dul qaadan karaan mar kasta ma ku jiraan laga yaabo in deen lagu leeyahay laga yaabo in nolosha kale oo la tacaalooyo nolol maalmeedkii iyo wixii problemi asi u qaas inay haystaan asagii oo u baahnaa inay garab istaagto ka waran hadday ugu sii darto ifur culayska go'aan qaadashada dhaqsi oo qaadanaa laakiin ma jiro maanta nin rag ah ee gurigiisa inuu intoo imaaday naagtiisii ku dhahayo waa ku furay guriga ka bax oo asi maagaya ma jiro haweenka xooga ugu badan oo ay leeyihiin waxay tahay inay dhahaan ifur mobilada laga qabo ifur alaabay u baahan yihiin haddii laga soo tago ifur qoriga ugu badan ee bistoolo ahaan ugu qabtaan waa rag ifur marka marxaladaha qaar waa lagu dhaafi karaa ama macaanta dulqaado waa lagu dhihi karaa laakiin maalin waxaa dhacaysa qofkii aad u caraysan oo garab istaag u baahan inay ku dhahdo ifur